mahadsanid daawadayaal halkaan naga daawanaysaa oo studio Royal 24 ee bariga Saudi Arabia jimca kastana aad naga daawataan wararka bariga dhexe wararkan idin haynana maanta waxaa kamid ah maxkamadda madaxweynaha xukunka laga tuuray dalka Masar Maxamed Mursi ayaa dib loo dhigay waxaa la dhageysan doonaa kooda bisha labaad ee February xakinka maxkamadda ayaa sheegay inay suuragal noqon weyday in Mursi la keeno maxkamadda hawada oo xun awgeed balse mas'uul sare oo ka tirsan xisbiga Mursi oo maxkamadda la keenay ayaa sheegay inuu Mursi uu isagu diiday inuu ka qayb qaato maxkamadda Mursi iyo 14 mas'uul oo ka tirsan ururka Ikhwaan Muslimiinka ayaa loo haystaa inay sabab u ahaayeen dil loo geystay dad ka hor mudaharaaday dibadda aqalka madaxtooyada xilligii uu talada hayay militariga ayaa xukunka ka tuuray Mursi kadib dibadbaxyo looga soo horjeeday xukunkiisa tan iyo xilligaas taageerayaasha Mursi ayaa dhigayay dibadbaxyo iyaguna ay ka soo horjeedaan dawladda oo militarigu taageersan yahay dalka Masar waxaa jira dacwado kale oo ku wajahan Mursi waxaa kamid ah inuu qorshe shirqool la galay kooxaha argagixisa ah hay'adaha u doona xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in eedeymaha loo jeediyay Mursi ay yihiin wax lagu qoslo mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegaya in Mursi la marin doono maxkamad cadaalad ah balse qareenada difaaca Mursi ayaa sheegay in loo diiday inay la kulmaan Mursi ayaa markii ugu horeysay maxkamad la soo taagay bishii 11 ee November ee sanadkii tagay iyadoo halkaas uu qalalaase ka dhacay maxkamadda ayuu ka sheegay inuu wali yahay madaxweynaha dalka waxa kale oo Mursi diiday inuu xirto labiska maxaabiista taageerayaasha Mursi ayaa sheegay in isaga iyo ururka Ikhwaan Muslimiinka la bartilmaameedsanayo ciidamada qalabka sida ee dalka Ciraaq ayaa weerar aad u culus ku qaaday magaalada Fallujah oo ay qabsadeen koox taabacsan shabakada Al-Qaacida kooxdaas oo Al-Qaacida ay taageersan yihiin ayaa maalmihii u dambeeyay ka dagaalamayay magaalooyinka Fallujah iyo Ramadi gobolka Anbar ee galbeedka caasimadda Baghdad weerarka ayaa socday muddo dhowr casho ah waxaana ciidanka Ciraaq ay ku duqeeyeen goobaha kooxda Al-Qaacida ay joogto diyaaradaha dagaalka hoggaanka ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegaya in maalmo gudahooda ay gacanta ku dhigi doonaan goobaha laga qabsaday weerarka diyaaraduhu ku garaaceen Ramadi ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof oo kamid ah kooxda Al-Qaacida ay taabacsan yihiin waa markii ugu horeysay ee kooxdani Fallujah ay ka taliyaan tan iyo sanadkii 2003 oo ay ku dirireen ciidamada Mareykanka si kastaba ha ahaatee dagaalada dib uga soo cusboonaaday Fallujah iyo Ramadi ayaa salka ku haya dagaalada u dhaxeeya Sunniyiinta iyo Shiicada dalka Ciraaq oo aan marnaba xal loo helin wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in ay wali socdaan iska horimaadka iyo dagaalka u dhaxeeyay kooxihii dagaalka kula jiray ciidanka Suuriya gaar ahaan jabhadda dawladda Islaamka iyo Sham oo ah farac ka tirsan ururka Al-Qaacida iyo jabhadda Islaamiga ee Suuriya oo ay ka midoobeen wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegay in ay wali socdaan iska horimaadka iyo dagaalka u dhaxeeyay kooxihii dagaalka kula jiray ciidanka Suuriya gaar ahaan jabhadda dawladda Islaamka iyo Sham oo ah farac ka tirsan ururka Al-Qaacida iyo jabhadda Islaamiga ee Suuriya oo ay ku midoobeen kooxo dhowr ah dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dhashay dil ay askar ka tirsan jabhadda dawladda Ciraaq iyo Sham oo ah farac ka tirsan ururka Al-Qaacida ay u geysteen Dr. Hassan Hamad oo ah dhakhtar laga yaqaan magaalada Xalab kadib 20 maalmood oo ay afduub u haysteen waxaa kale oo jira dilal dhowr ah oo loo geystay masaakiil ka tirsan kooxaha kala duwan oo ay ka dagaalamaya dalka Suuriya arrintaas oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen jabhadda dawladda Ciraaq iyo Sham jabhadda dawladda Ciraaq iyo Sham ayaa taas la mid ah u jeediyay kooxaha ka dagaalamaya Suuriya kuwaas oo ay ku tilmaameen in ay yihiin kooxo loo abuuray si ay u weeqaan awoodda ciidankooda dagaalka xoogiisa ayaa ka dhashay kadib markii la isku qabtay cidda maamulaysa xadka u dhaxeeya dalka Suuriya iyo Turkiga wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa ah mid aan farax gelinayn shacabka dalka Suuriya iyo muslimiinta taageersanaa in xukunka laga tuuro dawladda Suuriya uu hogaamiyo Bashar al-Assad iyo kooxaha Shiicada ee gacan saarka la leh ee taageero ka hela dawladda Iran dagaalka ka dhex socda kooxaha kacdoonka ee dagaalka kula jiray dawladda Suuriya ayaa waxaa laga cabsi qaba in gabi ahaanba ay ka faa'iideystaan kooxaha cilmaaniyiinta ah oo iyagu ka soo horjeeda in shariicada Islaamka lagu dhaqo dalka Suuriya waxaa sidoo kale xusid mudan in dawladda Iran iyo dawladaha kale ee dariska la ah Suuriya ay ka faa'iideysan doonaan khilaafka iyo dagaalka ka dhex socda kooxaha hubeysan ee ka dagaalamaya dalka Suuriya kumanaan ruux ayaa ka qaxaya magaalada gacanta ugu jirtay fallaagada koonfurta Suudaan ee magaalada Bento iyadoo laga cabsi qabo inay qabsadaan ciidamada dawladdu dadka intooda badan waxay galayaan xerooyinka qaramada midoobay ay ku leeyihiin isla magaaladaas
jabhadii mucaaradka ahayd ee qaybo kamid ah qabsatay deegaano kamid ah koonfurta Suudaan ayaa fallaagadu ay dib ugu gurteen safka hore ee dagaalka. Ciidamada dawladda ayaa isu diyaarinaya inay gudaha u galaan magaaladaas, waxaana intaas wararku sheegayaan in fallaagadu ay u muuqdaan inay burburinayaan hubka culus aysan qaadi karin. magaalada waxay gacanta ugu jirtaa xoogagga fallaagada ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Riek Machar. ku dhawaad 200 oo kun oo ruux ayaa ka barakacay dagaalka koonfurta Suudaan. Machar ayaa loolan dhanka awoodeed kula jira madaxweynaha Salva Kiir. wadahadalada labada dhinac uga socda magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, dhexdhexaadayaasha wadahadalada ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Addis Ababa kadib booqasho ay ku tageen magaalada Juba, halkaas oo ay kula kulmeen madaxweyne Salva Kiir. labada dhinac ayaa la sheegayaa inay isku mari la'yihiin qodobka maxaabiista siyaasadeed ee taageersan Machar oo ku xiran magaalada Juba. waxaa kale oo la filayaa in laga wada hadlo qodobka xabad joojinta. gudoomiyaha xilka kubadda cagta adduunka FIFA Sepp Blatter ayaa meesha ka saaray in koobka adduunka ee 2022 lagu qabanayo dalka Carbeed ee Qatar loo wareejiyo bilaha Janaayo iyo Febraayo, isagoo sheegay in bedelkeeda la qaban karo bilaha November iyo December. koobka adduunka oo caadi ahaan la qabto bilaha June iyo Luulyo ayaan suuragal noqonayn 2022 kuleelaha dalka Qatar daraadeed, iyadoo hore loo soo jeediyay in loo bedelo bilaha Janaayo, Febraayo ama November iyo December. si kastaba ha ahaatee, xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA oo xubin ka ah kan Olombikada adduunka ayaa helay rabitaankooda. hase yeeshee waxaa muran xoogan kaga iman doonaan xiriirka kubadda cagta ee Yurub ee UEFA, maadaama uu xilliga si weyn u socdo horyaalka dalka Yurub iyo kuwa qaaradeed ee Champions League iyo Euro League. arrintan ayaa hore dood badani ka timid, waxaana la rajeynayaa in FIFA go'aan ka soo saarto waqtiga la ciyaari doono koobka adduunka ee 2022, inkastoo aan la sugayn go'aan arrintan ku saabsan inuu soo baxo ka hor dhamaadka koobka adduunka ee 2024 lagu qaban doono dalka Brazil. halkaana waxay noogu dhamaaday wararkii bariga dhexe. Awil Cagaare, Royal TV bariga dhexe.